السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسل مال والباجوكتيد سوى البادي مقليسيد كسر دوا مقال عسب صار عيوان كوسا كسو عرسي بيب كوارديولا وحو آديات ورادنا وجعل الله هاي لو وريغو ريس جيمس أو حنكلو كوهايا تشيلسي oo haalan u noqotay targetkii ugu dambeeyay kadib Man City markay dhaaday Harry Kane waxaan dul dhignay 100 milyan Lukaku oo yiraasna Inter Milan ayaa iska joogi doona Euro oo halkii la kala mariyaa waxa la soo gaaray xilligii gabagabada ama knockout-ka inta gudaha u gal muuqaalkan magacaygu waa Cabdul Caagane janalka daawanaysid waa Caagane Football Channel ديتا مركادي كوغو ريسي أتصوب وقت جنالك وعن كعسل إن سبسكرايب لو سارتين هذا هوري لجوكتي وكم ما سنتهاي لجوكتي هذا لا تدوا نوم مهم سيجارة أصحاب بدن وقيمة بدن سيدا ديكو كلا كسر دوا المقال عسل هاي كسر دوا المقال عسل عاوة أنت جودها وقول لي مقالك ما عصب يا فنانا كعصب يا والسويدين وما لا يمان ورد فنانا وراني كتشيلسي سوغاتي تشيلسي وان بعد هديد هذا نورو كاري تشيلسي فوتبول كلاب واي مريدان وعدين يسا تشامبيونز ليجي أهان سوقانه مالمهان وأولي وحكو جبنا دبالدقي إنكستو أو صعدو كوبكي يورو أنت جودها وقول لي كوبكي يورو شكديسا أما أنكو هرماريا شكل والدة بيب كوارديولا والله صباحي بيب كوارديولا يا لغورميا يكوخد مان سيتي يعرف كلا هايبا وحي آديا دوجعلان هايين إن اللي وريغان ريس جيمس إنك هذا أكاديميكا كصباحي فايدي سيوه الرئي شقيي أما كلاكو سوقليي يكو قوليستي تشامبيونز ليغا أيوم كوارديولا حوليا هيوات تارجت كي يكوات إيراد باقا سنة كسوسع كدب كلنكي فاينالكا ee Champions League Raheem Sterling ayuu jabka gishtay Guardiola uu ka yaabay ninkaas maalintaas ayuu si fiican u daawaday wuxuu yiri Premier League sanadka dambe bilaabo doono waxaan u baahanahay Reece James inaan marba hadii lagu soo qoray jaraa'idada ugu afdheer ee waddanka ka soo baxa Sky Sport iyo Daily Mail ayaa ku warantay Pep Guardiola targetkiisa ugu weyn wuxuu yahay Reece James anagoo Man City maalmahan inay waalatay kadib ay ku dalbadeen Jack Grealish iyo Harry Kane min 100 milyan Guardiola inta u socday akh hada horyaalka Premier League iska qaadaysay Champions League la waxaan u ofeysanaysaa Guardiola waa soo dhigtay 100 milyan hebel arna mala la leexanayo halka maraan biis kala soo saar 100 milyan dhag hada kooxda u tagaysaa waa 100 kala saaraysa miiska Guardiola sanadkan waxa la leeyahay wuxuu rabaa inuu Champions League soo socdo inuu ku guuleysto ama wajaaniskiisa ugu dambeeyay oo clubka ka sii mid ahaan doono hadii uu qaadi waayo Champions League xagaaga soo socda xaqada ayuu ka bixi doonaa isla Champions League UEFA ayaa ku dhex jiray UEFA waxay soo saartay goolkii aweega ahaa ama Champions League la xisaabi jiray wixii ka bilaada 2022 Champions League la ciyaari doono daaqada ayaa laga saaray ma jiri doonto wax la yiraahdo goal away wararkeena kale waxa kamid ah caawa Haaland ayaa Chelsea ay noqdeen ninka kaliya ee target gareynayaan sanadkan Chelsea waxa ka go'an inay helaan number 9 dhameystiran sanadkan si loogu qayb qaato horyaalka Premier League ee bilaabo doono Agosto 14 ayaa la leeyahay Chelsea wuxuu u noqday number 1 targetkooda ugu weyn kadib markii Harry Kane ee Man City ku soo dalbatay 100 milyan Lukaku oo sheegay inuu sii joogi doono kooxdiisa Inter Milan marka Chelsea waxa u furan oo kaliya waa Haaland oo sanadkan ku qanacsaneen inuu ka sii ciyaaro waddanka Jarmalka iyo kooxda Dortmund Haaland waxa la leeyahay wuxuu u baahan yahay inuu aado koox weyn oo Champions League ciyaarayso Chelsea ayaa ah kooxda kaliya ee hadda ku raajogto walow oo la leeyahay kooxda Real Madrid ayaa ayagana balse waxay u arkaan inuu yahay dooqooda labaad kadib dooqooda koowaad oo yahay Mbappe oo yahay markaana waa Euro oo soo gaaray knockout-ka ama
kulamadii 16 waxaa food isdaray oo maantay soo wada ciyaaray ciyaar hadda soo dhammaatay waddanka Italy iyo waddanka Austria. Talyaaniga ayaa ku soo baxay 2-1 ciyaar la isku xiiqmay oo ku dhammaatay 90 minutes ever kadib markii la isla aaday extra time ayaa lagu kala baxay oo Talyaaniga la imaadeen 2 gool. Austria waxay soo celiyeen gool balse ciyaartu waxay ku dhammaatay 120 daqiiqo kadib 2 gool ay ku soo baxeen waddanka Talyaaniga. Talyaaniga waxay ku aadi doonaan midkood waddanka Belgium ama Portugal. Ciyaartii ka horeysay ee soo gashay 5 galabnimo waxay ahayd waddanka Wales iyo waddanka Denmark. ciyaartii intay bilaaban ka hor waxaa lagu sharfay lambar 10ka Eriksen oo dhaawac ku baxay ama suuxtin ku baxay kulankiisii ugu horeeyay ee la ciyaarayeen waddanka Finland. Eriksen ayay waddanka Wales lambar 10 fanaanad ku qoran tahay iyo magaciisaba ku sharfeen asigoo ku jiro xaaladiisa weli iska bariga dhex tahay oo ku sugan hospitaalka. kadib ciyaar ku soo dhammaatay 4-1 Denmark ayaa ku soo baxay. Denmark waxay ku bixi doonaan ama ay ku aadi doonaan wadamada midkood Czech Republic ama Netherlands. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. aad kaaga mahad celinaa daawashadaada, laagtaada, sii shargaray oo asxaabtaada la wadaag saan u helno asxaab qiimo badan sida adigoo kale. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.